سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سود هذا داوديا هالكني aan joogno ee aan ku sugannahay waa Toggeereed waxa isku xidha caasimada gobolka Erer iyo degmada Mayu barnaamijka aanu idin soo wadno ee rabno inaanu idin daawodsiino quruxda bilicda iyo taariikhda degmada Mayu mulqo raqay ayaynu halkan ka bilaabi doonaa biyahan iga dambeeyay ma go'aan waa biyo rabbaani sidoo kale waxay ka mid yihiin goobaha quruxda badan ee loo dalxiis tago markay dhagahaaga ku soo dhacaan Erer ama degmada Mayu halkan ayuu ka bilaami doonaa barnaamijkeenu magacay waa Muxidiin Maxamed Cabdullaahi oo ku magac dheer Muxidiin Show dhanka kaamirada waxa igala qayb qaadan doona iyo edit-kaba iyo isku habeentaba saaxiibkay Bulshaawi waxaad kala socon doontaa barnaamijkan Wadaydaala TV sidoo kale Bulshaawi Production iyo media-ga qaybihiisa kala duwan oo fasax u ah inay barnaamijkan ay qaataan soo dhawaada daawadayaal halkan ayuu ka bilaaban doonaa socdaalkeena ku aadan wax ka baro degmada Mayu kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal waxaynu ku guda jiraa barnaamijka wax ka baro degmada qadiimiga ay kamid ah degmooyinka deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Erer nogobtii hore ee degmada Mayu mulqo waxa kale oo raaca magac kale oo laagta hadda aan fadhino ee raqay oo lagu magac daray degmada Mayu waxa ila jooga suldaamo odayaal dhaqameed salaadiin iga warrami doona taariikhda faca weyn ee degmada Mayu halkani waa Wadaydaala TV waxaan ku bilaabay suldaanka si uu noogu soo koobo umuuman taariikhda degmada Mayu waxa magacayga waxa la yiraahdaa Suldaan Maxamed Macallin Khaliif haddaan ka sheekeeyo degmada Mayu mulqo taariikhdeedu inta ay Soomaalidu degantahay waa 3 qarni waxa jiri jirtay xafiis oo ahaa gurigan geedka wada la sameeyo waxa noogu horeysay 75 taariikhda Yurubka markay ahayd yaa jidkan uwaas Maxamed Dalxo markaa nin dhalinyaro kacay ahaa yaa hoose jidka soo bilaabay marka Soomaalidu degmada Mayu Oromo kuma Soomaali baa ku magacaabnayd gola guguuf yoo ka soo qaaday yaa wadi baa la uwaas Maxamed baa wadi baa la gola guguuf ka soo qaaday jidka halkan aan ku keenay waxa taariikhdu ahayd 1975 jidkii halkan uu ku joogsaday baqraha xilliga imanay baawuri ma jirin wax yar ka baadi waxa bilaabay gaadiid gudoomiyaha degmada Itoobiya wax ka yimaado sida darteed wadankan kada wadan goodoon oo ay Soomaalida aynan imanin inta badan daaqeynka mooyeen way ahayd sida darteed waqtigii taas soo dhaaf wadankan kada wuxuu Ilaahay ku nimceeyay khayraadka ama xagga cuntada xoolaha ama malabka oo kale اللهم صل على محمد وحيالها كبح مدها نوعية خيرات oo kala bedelan oo badan bay hadiya jeerleedo xakam macdanta wax walba waa ku hodan kolkay nooca tahay dhulkan kala waxay Soomaalidu ku soo martay dhib fara badan dadaal badan baa loo galay khiyaar badan baa u goday aqli badan baa ku tego ku dhimay anigu waanu joogo goobjoog baan u ahaa taariikhda uwaas Maxamed Dalxe Hussein ka soo bilaabay goobjoog baan u ahaa wuxuu noogu qaybin jiray caana bilaadi baa la yiraahdo bahashan caana boorada lagu keeno taas noogu qaybin jiray qamadinka noogu qaybin jiray gacantiisa halkan ku keenay runtii weey beenti ma
sidaa haddaba kolkay tahay muddo fara badan xayla salaasa waaga ah gawaadhi gaagaaban oo gawaadhidan ila awsuusiga oon sagxad kore loo samaynin oo gaagaaban oo maxay gaadhiga noocan hun aanu leenahay yaa lagu keeni jiray qamadinkana taariikhdaasi saasay ahayd ta kale halka galbeed bay ka iman jirto gura way ka soo mari jirto xaggaas tog meja ay soo buundal lagu sameeyey gacan oo nin maxamed xasan la yidhaaho oromada ahay gacantiisa ku sameeyey waa liqaanbarka ah taasay soo mari jireen baabuurta saasay ku iman jirtay rogo meel la yidhaah iyo sidaa ay ku imaan jireen sida kale waa sidaa uu taariikhdu sheegay duqani waa runtii way jirtaa masna guuxa way jirtaa masna guuxa way jirtaa waa labada tog erar iyo gobay la darmidooda masnooyin waaweyn weeye togan horta kolkaan sheego asal ahaan labada tog baan iga u dhaxaynaa annagu halkan mayu kolkay kobtay ku dhamaata dangareeb baa la yidhaah halkanna kobtay ka soo bilaabata buurta weyn ee mayu muluqa yaa la yidhaahdaa iyaga mustawaaqooyinkanagaba ku shaabadaysan yay ka mid tahay labada togba waa masno labada togba biyeyow iyo beeraba way leeyihin beeraha waxaan u qodan laanahay waa wada la-aan hal 2 saac mise 3 saac baa lagu jiraa jiirahooda yaa lagu jiraa wadadan eega tan soo marta mugweyn waagii la baneeyey taariikh ahaan bay ayada xasan xadkulle shirkii lagu qabtay waayo nin annaga suldaanbada beeshan mayu ka mid aha wuxuu yidhi ilaahayba ma aanaan baryaynin ilaahu noo soo mari baabuur ilaahu mu noo soo maro ilaahayba waxaan baryaynay ma aynan ahayn buuri runtii bay ahaydoo baabuur baa mayu soo mari ma aanaan lahayn alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta dawladdu qayb adag bay ka qaadatay oo bariishkan waxaan garan habeen aanu nimid oonu fiiq ka soo tagnay oon maamulka degmada la soconay oonu kabtay jiingadaasi ku dhisan tahay aanu barinay laagtan oo socotay yaa aanu barinay bay ahayd sidaa darteed taariikhda mayu mulqa way buuran tahay magacayga waxaa la yidhaha xuseen muuse ibraahim haddii aan ka bilaabo oon ku socdo intaan ka xasuusanahay degmadan taariikhdeeda degmadan taarikh dheer bay soo leedahay inta aan filayo xilliga ugaas cabdisurun ka hor buu dadku yimid cabdisurun berigaa uu cabdisurun halkan ugaaska ka ahaa horta markii hore fiiq buu fadhiyi jiray isaga iyo waxaa la qaybiyey ayuub mahdi aawowgii iyo isagaa iyo halkaa yaa wada ahaa halkanuu cabdisurun yimid halkanuu dawladda tawakay u ahaa berigaa waxaa la odhan jiray damiin ani awowgay oo ibraahim maxamuud la yidhaahdo qubi baa la geeyey isna halkaasuu ugaaska ahaa xilligaas taariikhdaa geedkankadii wuxuu ahaa hoolka shirka daantanna waa la degi jiray daantanna waa la degi jiray marka uu ugaasku shirka cilaamiyo hoolka shirku geedkan u ahaa geed taarikh dheer eega inta 100 iyo intaas oo dhudood baa ku taalla oo tirsan laamood baa ku taalla taarikh dheer buu leeyahay geedkani hoolka mayu waa geedkan caamka ku yahay sababtaasaan beriga dhawood ugaaskeyga ugu dambeeyay halkan ugu caanasho annaga uga shidaal qaadayna taariikhdaa hore taariikhdaa tahay awowgii buu ahaa ugaaskan awowgii buu ahaa ugaaska aabbihii iyo ugaas cabdisurun iyo walaalkii saddexdaasaa 3 dhawood lagu kala xidhay maadaama ugaaskii ahaa dhibkii halkan kada ka dhacay bay dawladdu u qabsatay 3dii laana eega lagu kala xidhay waa sidii bay u joogaan taariikhdaas eega 3 qarni baa laga joogaa marka xagga soo joogida saas ah nolosha lagu joogay maxay ahayd kolka nolosha lagu joogay waxay ahayd doorka waxa ka bax xabagta midhaha malabka xanjada iyo malmalko intii la gurta la iibsado waxyaabo de dumarku eega way lu go'aane waagii feebaadiya la harkay soo hijireen moogta baalayda xaskul inta gashadaan ayaa garar ka sameey jireen way soo iibsan jireen oo awrta lagu raran jiray hararka iyo harkaaba al'aan eega waa laga helayaa halkan kadinka godayow heeriyadii taalo heeriyadii dumarka loo dhisi jiray hadda halkan waa laga helayaa godayow waaweyn oo ila bakhaarka la dhigtaa wuxuu ahaa dabeeci ilaahay sameeyey oo dumarku gabadha kolkay gabadhu dhalato iyo hooyadeedu bilaabi jirtay intaas harba u sameeyay intaas oo kabidood halkee u dhigi halkaan baa u dhigi godihii reebel weeyo oo lama taabanayo cid ma taabanayso waaga gabadha la guursadoon baa looga soo bixin
marka taariikhdeeda horta saasay soo ahayd magaalaba agab iyo gogol midna toono looga badoonayn waxaa la halkaa dumarku haay geedka waa la qoran haay waxa la wixii dumarku wax ku qabsanaya waa la qoran waay waxa la wixii la dhisanaya waa la samaysan wax looga baahanayaaba ma jiro haddii aan ka hadlo arrimada jira horta waxaa leeyahay magacayga daal cali nuur cabdi da'daydu waxaan leeyahay 60-ka waan eeg buuxaa anu halkan baan ku dhashay eega meel eega haddaan kabtaa istaagan muuqata aradaa baan ku dhashay intaa halkan baan joogan ku weynaaday dhinac moo dhaaf de waa safar haddaan u kaco ama ilaa intan uneega deegaanka dhexdiisa laakiin meel ka dheer xataa xamartaa yar hiilasha loo kaco xataa ma aragno haddii aan ku socdo taariikhda may way farbadnay way soo dheheen niman baa ka soo hadlay arrinteeda rag baa soo dhameeyey laakiin haddaan wax yar ku daro ways cabsurun baa ninka geedka lagu xiray waas dalxo oo dhalay baa uga dambeeyey wuu ku cimriyey oo ku dhammaystay waas maxamed dalxana wuu ku dhammaystay saddex soo maa waas axmed baa iga haya afar soo maa oo isna halkaa lagu dordhigay afartaa waasba geedkaa lagu dhisay waana geedkii raqay ku leeyahay ruqaayadaha caamka ee soomaalida deegaanka ka timid ay wada taqaan ay hoos harsatay geel iyo lod iyo arig hoos haris ee nasinta loogu talagalay maalka soo daalay markuu yimaado isdixda geedkaasaa la geeyaa la hariyaa lagu nasiyaa maadaanta raggu xataa intuu shaaha soo cabay geedka lagu nasiyo wey maalka ee ciyaalka kusii joojiya inta lagu doonyeestaa lagu shaqaysta aaraabaa la isku dhaafsadaao waa geed taariikh dheer taas waa intaa waa xagga taariikhda ta kale waxa weeye maadaama in badan la soo joogo saa loo soo joogay degmadani waxay ahayd 52 degme ee ugu horreeyay dowlad deegaanka ee aftintu ka dhacday markii hore dadka yacni aftinta la bixinayay 52 degme ayay ku jirtay haddana waxa weeye deegaanka degmooyinkiisa wixii dambe lagu daray waa fara badan yahay dad badan oo ama maamula ama deegaanka ka yimid oo dunida daafiyada iyo soomaalida deegaanka ka yimid baa in badan yimid deeshay leedahay waa la ogyahay dowladda waan u mahadinaynaa oo haddee shalay waxaa la yidhaha dunyada daraad maxaa joogay shalay maxaa joogay maantase maxaa joogay daraad waxaa joogay inaan meelahan baa dee midhaha lagu beriyaya iyo caanaha oon loola kacaynin meel hawdhow leh daraadna waxaa joogay in awrka la hadhursado oo meelaha laga soo hadhursado shalayna waxaa joogay inaa intay colku meel loo baxa la waayo ya dooxyahankadi meelo dooxyo oo dee dabeecigii dhulkii dabeeciga ahay layska qodinaya layska qoto oo xoolahan lagu laqdo horta mayumulaq waa degmo sidaa waa degmo aad iyo aad lafdhabar u ah waa degmo mayum u ah dowlad deegaanka kay marka waxaa weeye laba qodob baa meesha taalla mid waxa weeye dowladda deegaanka waxaan leenahay horta mayumulqa waa lafdhabartii deegaankii 7 gobol ay nimankaas sheegayaan halka yimaadeen maalku wuu ku baxaa abaartu kaga baxaa maal badan oo dhumi lahaa inta gawaarida lagu soo daadguray oo fiiq iyo agagaarta lagu daadiyaa yaa loodin lagu keena marka dambe wala damana way iska kacdaa degmada saakayda bayd midhaha ka baxayay xabagtaa ka baxaysay malmalkaa ka baxayay xanjadaa ka baxaysay waxa ka baxayay waxaan eega ka faalloon kara maaha macdantaa ku jirta waa siday nimanku sheegeen sidaa darteed degmadan markii horta la dejinayay sida lagu dejiyey ninkaasi aabbihii awru lahaa ciisaba halkan lagu furay gudoomiyaha degmada aabbihii oo caali cabdilla ciise uu lahaan jiray yaa horta kabtaa lagu furay geedda horkeeda geedka ruqaynta horkiisa sababtu waxay ahayd nimankan aan isaynay horamo waan isla baabanay 3 sano xabaddu socotay haddii ay socotay dee deegaankiiba in laga kaco yay istaagtay walka waxaa leeyahay meesha ceelka aynu salka saarno ee biyaha horta arrinta lagu degay tarshi guudinta la shiroo la shiray baa leeyahay aynu degno dixda raqayday ya oo horta bal biyo ilaa adduunyada waa kulliga kow moogta kowdii naftu baxda aynu biyaha horta salka saaraa leeyahay cabni halkaasaynu iska difaaci karnaa dhuuniga waan doonanaynaa xabayska koraa iyo raashinkii laga soo raray caaliso xiiskiisi gar wada yaa odayaashii qalabkii iyagoo wato oo idil oo dhowr boqol oo ruuxa yaa horta lagu furay oo lagu dejiyey degmada daraadta sidii loo degay way ku taallaa
intii dejisay gallada allah ka siiya naxariisna allah u waasiciyo way galbadeen aabbahay iyo kan iyo aabihii kulli raggii waa wada hoyday raggii dejiyey degmadan waa wada galbaday waxba kama dhaqna magaalo maxba looga baahan ba waxaana soo gaadho dee intaan anigu eeka joogay unbayba koobka iyo bahal dhambala lahaan jiro fujaan la yidhaahdi iyo unbayba yimideen badee xeedha hadda waagoor waa la cuni jay mugta taariikhda sor saasay may ku soo ahay kadib sidii la soo socdo imika xagga imika loo soo socdo ee jaanqaadkan imika 250 degme ugu horeysay baad intaa iyo intaa sidaa nimankani soo sheegeen baa ahayd dhibaato badan baa lagu soo maray dawladdan waxaan doonaa ka tabano laakiin waan ku sinay 3 sano imika Soomaalidu aragtay oo hadduu ala ku rooy war wada dhulkan soo dhul Soomaaliyeed ma abaarahan baa dadka tusay moogtay abaarahan baa tusayba inta colaad mucaarad nagu soo martay wax la xisaabi kara ma kolkii imika la isku soo celiyo deegaankeena kaydka soo dawladdu kayd ma dhigto kaydka deegaankeenu mayuba kowka sida qubi oo kale maadaama ay adduunyada waxa la dhaqaday ilaa Soomaalidu waxay caam ku tahay xoolo dhaqasho iyo caam ku tahay qodaal caam kuma caamka waxay ku tahay waa xoolaha maadaama ay kaydka xoolaha tahay oo marnaba bari ka dhici jirin sanadkan ay ugu liidato xooli halka kala yimid imaatinka halka yimid reema ma bilaabeen annagoo markaa waxaan u lahayn abaar baan hays annaga sii joognay xooli bari laga keenay markaa halka yimid reema ma bilaabeen ilaa qowga imika iyo ka inta u dhaxays 150 ceel oo gacanta lagu qoday baa ku jira gacanta lagu qoday yaa ku jira kan imika abaaraad marka banaysan ma xilliga abaartu dhacdo ee biyo la waayo ee laas la waayo ilaa biyo xidhano waaweyn oo gidhibo waaweyn mayu kama bajiraanba xilliga abaartu dhacdo barkid in bil ama laba qabale wax dhaansado wax ka wadaarsan biyo xidhan kama jira mayu biyo la soo saaro oo ceel dheerana kaasoo 100 mitir qodan baa ugu horeeyay yaaba ugu horeeyay riigaas gacanta lagu ruuxiyo kaas yaaba ugu horeeyay kuwa lolayo gacanta lagu horeeyay yaa ka dhowr sano joogay oo dad iyagu lagu hamiiq baxay waxa lagu hamiiq baxay ee cidda doolka ah ee soo timaada iyo ka sii jooga iyo afka dadka laga wada cabayay waa ceelka gacanta ku jibnay qaarkood baa 9 ruux galaan qaarkood bay galaan 17 ruux marka dambe ay cadaato ay biyuhu fogaadaan dee laaghoodana oo bad awayaan marna biyo laga waayo sababta halkan kada aanu degnay waxay biyaha daraato ilaa naftu biyo u baahan tahay 70 aadiya kuwa biyaha maadaama jid aan lahayn inta badan colaad haysatay waxa la yiri biyahaynu kor degno biyahaynu ilaashano dawladda istoorka ma ilaashato kow furahan ilaashayna waa biyaha cadawgu yuna naga qabsanay biyaha sababtan ku degni saasay mar hadii la ooma dagaal la gelinayo lana joogi maayaba biyaha sababta halkan kada loogu dagay kanaacada lagu dhex dagay ee dhagaxan lagu dagay waa sidaa marka waxaan inta hadaan soo dhaaf waxaan ku darsanayaa inta calaalkeenu taban ku darsan fiiqi halkan kada 50 kilomitir way xamaro 50 kilomitir bay fiiq u jirtaa imika biyahan kada halkan kada masnuub waxa laga qaaday mayu qabalahayga xagga oo heed soo marteen annagu waxaan ragga qoriga haystay dhalinyar tahay wax difaaci laakiin kuwii talada lahaa ee wax hogaaminayay ee ajandaha dhigayay iyaga ahayd maxay soo saxalaasay waxaan leenahay horta saa weeye degmada mayu loo taariikh fara badan bay soo lahayd alxamdulillaah rabbil caalamiin shalay waxay ahayd dhuun aan caloolaan dhuun lahayn laakiin maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin deegaanka waan isku calool dhuun waan isku irmaanahay deegaanka waxaan ka rabnaa dawladda biirsi baan ka rabnaa inay daymo xoog loo oo biirsimaada soo biirso maxaa wacay deegaanku meesha ku soo qaxaway meesha waxaan ugu dhibadnaa halkaan mari laan haya adduunyada daaq waan haynaa ceelkiina waan haynaa oo raqay imika ari fooftaankii in dhan yaa ceelku koro u jira ari foofkii xagga neega qowga hoos marsay inuu xambaara inta dixdaad arto jilaalkii xilli abaaroodka degtaa iyo degtaash iyo sacaya rida taagan badan in u shil dhulka lagu tuuraa dhacay inay neef ku dhacdo mooy
marka waxaa maalka saa haddana saa buu kala fulaa wax oomaana ma jiro wax oomaana kolka ay nagu kaliftay ee dadku soo bato maalkanaga waan durkinaa oo xagga oromiyadaan istabeecad naqaanaan ku riixina hooygii martida ma yimulqo marka deegaanka waxaan leenahay ma yimulqo waa lafdhabar waa kaydka soomaalida deegaanka xoolihii meel waanu haynaaye waxa noogu daran dadka dhuunigiisa kolka dadka qaxa ay yimaada dawladdu sanad walba way la kadeedantaa dawladda halka ka jirtaay sanad walba way la kadeedantaa dadka ya marar waxaa jirtay kootaha yaree loo keenay degmada loo qaybiyo dadkii soo jabaydii ilaa ninkii xalay ree aqalkiisii beriyey qaxwo hadduu cabo wuu iska sixan karaaba laakiin nin doolahoo sakaraadoo soo dhalay oo xilliya soo socday waxay ku galatay dawladdu inay tiraado dad shacabkii oo samra intan waxaa loo qaybinta masaakiin annana waan ku raacnay aad baan ugu tagarsanay marka maadaama ay tahay hooygii soomaalida deegaanka waxaan rabnaa xoolihii waanu haynaa waxay cunaan hadalka ma joogo waxaa noogu daran dadkii dhuunigoodii dhuuniga xaggee laga galaabaa ma jirtaan war laba badood baan u dhaxaynaa de anugu laba badood bad waxaa weeye laba togoo isku soo daro julul iyo majaleel halka inaga jira jid bay u baahan yihiin lagaga dhaadhaco oo lagu dheefsado tan masna guuxa waxaa weeye gobeelle iyo erar laba togoo la yidhaha baa yaa isku soo dara masna guuxa meeja loo yahay haddaad eeg dhex fadhiisto adiga way kula tegday dhul bannaan oo galay oo istaraajilahoo wax waliba ka bixi karaana way dhex socdaan biyahaas xaggee marka loo mara haddii lagu dhaadhaco la qodo wiilka qodaay xaggee wax kala bixi baday waa inuu gallayduun awrka ku gurto laakiin wax kale waxba kama suuroobin marka waxaan leenahay weliba xoogga u weyn meejale masna guuxo oo berri haddii aad marto weliba adigu inaad iyo dawladda ka jirtaa meesha inay sii marto oo wada aragno waan jecelahay halkaa waxaa weeye waxaan kaalmo uga baahannahay dawladda oon aad iyo aad ugu baahannahay labadaa tog inaa xoogga la saaro sidii lagaga faa'iidaysan lahaa oo dadkaas soo jabay hadduu dadku degan yahay dadka dhulka jooga dhuuni haysto oo toga gubisin yihiin dadku ma rafaadi laha dawladdii islama khashifneen dadka doolkii ugu dambeyn waxaan leeyahay oon dawladda ka codsanaynaa maadaamay wax badan soo qabatay alxamdulilah rabbilcaalamiin wixii dambe ku taraala meejileel ma yimulqa waxay u baahan tahay togadaa inaa sidii wax looga faa'iidaysan lahaa la yeelo oo jidad loo bixiyo xagafyihii lagu qodi lahaa la keeno qaabkii jidadka lagu bixin lahaa la yeelo dawladda indha wanaagsan oo kalgacal ku soo daydo saasaanu ka codsanaynaa aad baad mahadsantahay adeerkiis waa hagaag waa habeenkii koowaad iyo dokumentariga aan ka soo diyaarinayno degmada mayo oo ka mid ah degmooyinka qadiimiga ee gobolka erar eges nogob habeennimo ayaanu ku guda jiraa degmada mayo waxay ka mid tahay degmooyinka aan lahayn haba yaraatee wax laydha iyadoo xukuumadda codsi ay u dirsadeen waxgaradka degmadani iyo salaadiinta iyo ugaasyada ugu horreeyaan suldaanadu hadalladoodii waxaa ka mid ahaa xukuumaddaanada dhegaha nugul waxaanu ka codsanaynaa in ay noo samayso waddo iyo laydh si aanu uga mid noqonno degmooyinka kale ee deegaanka soomaalida oo iyagu guud ahaan intooda badani ay haystaan laydh maadaama degmadani tahay degmada martisooriyada deegaanka soomaalida xilliyada abaaraha oo ay u soo gooshaan dhammaan gobollada kale ee deegaanka soomaalida ciddoodana ay halkan keensadaan iyadana waxaa kaloo xusid mudan degmada mayo inay ka mid tahay 52 degme ee abtida lagu doortay tan iyo intii deegaanka soomaalida la aasaasay ee Soomaali galbeed waa Maxamed Maxamed Cabdullaahi habeenkii koobaad ee dokumentariga barnaamijkan ugu magac daray wax ka baro degmada mayo dhan kastaba dhanka kaamirada waxay igala qayb qaatay saaxiibkay bulshaawi qaybaha dambe waxaynu ku soo qaadan doonaa buurta caanka ee masna guuxa oo aanu tagi doono subaxnimada markuu waagu noo bariyo isla markaana aanu tusi doono indhaha caalamka waa inoo buurtaas iyo weliba biyahaas quruxda badan annagoo idin soo tusnay quruxdii iyo bilicdii uu lahaa webiga gobole amaandhee toga erar ee u dhexeeya degmada afiiq ee xarunta gobolka erar iyo sidoo kale degmada mayo